Badhasaabka gobolka Saraar ayaa soo kormeeray xarumaha dawladda ee ka dhisan magaalada madaxda gobolkani Saraar waxaana kamid ah xarumahaasi wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka Saraar, wasaaradda hawlaha guud ee gobolka Saraar, wasaaradda beeraha ee gobolka Saraar, wasaaradda cashuuraha bariga, xarunta dawladda hoose degmada Caynaba, xarunta garsoorka gobol degmada Saraar, wasaaradda waxbarashada, xarunta xanaanada caafimaadka, cisbitaalka guud ee magaalada Caynaba iyo bangiga gobolka Saraar iyo qaar kale badan. Waana kuwan iyagoo ka warbixinaya madaxda xarumahaasi sida mudane gudoomiye aad baanu kaaga mahad celinaynaa maxay booqashadii ugu horeeyay ee gobolka aad ku mareysay xafiisyada wasaaradaha ka howlgala gobolka Saraar maadaama aad ugu soo horeysiisay xafiiska wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka Saraar. Mudane gudoomiye xafiiskan aad saaka ugu soo booqatay wuxuu ka mid yahay xafiisyada sida effective-ka ama sida tooska uga howlgala xarunta gobolka Saraar ee degmada Caynaba. mudane gudoomiye xafiiskan wasaaradda qorsheyntu wuxuu ku jiraa xafiisyada wasaaradaha wuxuu ku jiraa rol muhiim ah. booqashadaadan aad noogu timi waxaan kugu siinaa warbixintii xafiiska waxa ka howlgala shaqaale rasmi ah iyo shaqaale temporary ah labadaba. shaqaalaha temporary ah waa maxay tahay san ku sheegay shalay waa 5 maxay tahay shaqaalaha rasmiga ahna waa 2. xafiiska waxa wada isticmaala wasaaradda beeraha iyo wax wada fariisto wasaaradda qorsheynta insha Allah billahi kariim waxaan rajeynaynaa inaanu ka bixi doono waanu yeelan doonaa laba dhisme oo mid kasta ku baahi baxo insha Allah billahi kariim. waxaan ku faraxsanahay runtii inaad xafiisyada aad mas'uul ka tahay aad kormeertid ogaatid sida ay hawshu ummadda loo hay'ado u socoto anana waa nama qabnaa xafiiskan waa xafiiska xoogaya fulinta dawladda hoose nagala qayb qaato horumarka gobolka iyo ka cusbitaalkaba gudoomiye aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa kulankaaga noogu timi. ugu dambeyntiina badhasaabka gobolka Saraar ayaa ka warbixiyay kormeerkiisa waxa weeyaan inaan xarumaha wasaaradda soo eego nin gobolka ku cusub baan hay badhasaabka cusub waxaan hadii la yiraahdo wasaaraddii ugu horeysay ee soo maray ayaa tahay shaqaalahaagina way joogaan adiguna waad shaqeynaysaa. muhiimaddu waxay ahayd inaan xafiiskaagana soo arko sida aad u shaqeynaysaana soo arko saacadaha shaqadana aan soo ogaado marka attendance-kiisana waan u baahanahay attendance-kiina samaysataan waxaan u baahanahay inay shaqadiinu joogto noqoto waxaan u baahanahay sidii horumarka gobolka ku soo baxayo idinka idinka rabaayo wasaaradihii si aad u dadaashaan baan annaa idin la shaqeyn karayo aan ku dadaalna hadii la hayra marka laamaha baalasheedii aan ku shaqeynayay waa idinka shalay waxay ahayd maalintii koowaad ee aan kulanno aan isbaranay aynu shirnay dhammaan isuduwayaasha maantana xafiis ayaan idin soo booqday. waxa kaloo madaxweyne Musabix maalinta Khamiista wasiiradiisa way isugu yeedhaan wala shiraa inaguna maalinta Khamiista waxay wasiiraa waa idinka maalinta Khamiistana toos yimaada ayaabaha kalena shaqadeena inuu controlnaa maalin maalintan doono idin si sheegi maaye waan soo maraya. waa Cabdiraxmaan Faysal Family telefishinka caalamiga ee Real TV magaalada Caynaba xarunta gobolka Saraar.